baan saaxiib Soomaaliland aniga waa u simannahay warqorta marka kooda ku galo waxaan aragnay ma waxaad samaysay wallaahi oo bilaa xataa waxaan maqalnay ma inta u sheegtay been quman ma xataa waxaa tahay gabadha iyadoon la furin meel lagu furay ayna jirin intay ummaddaas oo fadhiistay Soomaali Maxamed tiri waa la furay Soomaali Maxamed ayaa marqaati ka inaan telefoon aan ahaa YouTube ka dadkii aqli leh way geli karaan ani xilliga aan Nairobi maaday ayaan soo fariistoonay wax walba dadka u kan waa fanaanka Suldaan Seraar Guhaad oo soo jawaabay dagaalkii ka dhex qarxay rasmirees iyo xaajkeedii hore Farxaan Yare haddaba inkastoo baryihii ugu dambeeyay isla dhex marayay ama kolba dhammaal maadaama uu noqday filimka rasmirees iyo sidoo kale Farxaan Yare mid musalsal oo kolba maalinba wax cusub la soo deynayo haddaba Farxaan Yare ayuunbaa ku hajabay kadib markii uu soo bandhigay dhowrkii saac ugu dambeeyay muuqaalo argagax leh iyo sidoo kale sawiraan kaasoo ku fadeexaynaya rasmirees iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed oo aad ula tacajabay haddaba fanaaniinta ayaa ka adkeysan kari waaya arrinkan maadaama inantan tahay gabadh Soomaaliyeed sidoo kalena ay wanaagsan tahay in la ilaaliyo sharafta hablaha Soomaaliyeed si kastaba ha noqotee fanaanka caanka Suldaan ayaa ka hadlay arrinkan isagoo ammaan kala dul dhacay fanaanada rasmirees haddaba sidoo kale Farxaan Yare ayaa xanaaqay kadibna sheegay in uu kuwan qaar ka daran hayo maadaama social media noqday mid tirada dadka daawanaya musalsalka rasmirees iyo sidoo kale Farxaan Yare uu noqday mid aad u wacan haddaba arrinka Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmirees ayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ka yaabay kadib meelba markuu dhinac ka soo hadlay kaasoo la soo bandhigaya fadeexadaha midka kale ka hayay haddaba arrinkii brefatka ayaa qof walba irsaaqad ku raadinaya si kastaba ha noqotee rasmirees ayuunbay ahayd maalin saddexaad kadib markii ay soo fadhay ceebihii adduunka kaasoo Farxaan Yare dhammaan dadka Soomaaliyeed ku tilmaameen rabshoole kaasoo dhibaato culisna u geystay inkastee intii ay kala maqnaayeen rasmirees iyo sidoo kale Farxaan Yare ayaa rasmirees sheegtay in ay ka raysatay maadaama isagu uu sugi jirin aanu shaqaynsan jirin maadaama uu sugayay waxa YouTube ka soo gala rasmirees si kastaba ha noqotee rasmirees ayuunbaa ahayd fanaanad Soomaaliyeed iyo sidoo kale YouTuberad ama jira haddaba rasmirees cidna kaaga sheekayn mayso laakiinse waxaa la isku haystaa muuqaalada iyo sidoo kale sawirada ay wada galeen maadaama lamaane Soomaaliya ahaayeen halkaasna ay ku sugnaayeen dhowr bilood gudaha Somaliland haddaba si kastaba ha noqotee Farxaan Yare iyo sidoo kale muuqaaladan uu hayo ayuu ku dhaartay in uu saacadaha soo socda soo bandhigi doono qaar kuwan ka daran haddaba dadka su'aasha isweydiinaya ayaa arrinkan in ay isku xanaaqayaan mays ogaayeen rasmirees isla ay furayaan oo arrinkan ka dhex tilaacayo maxaa sawiradan sidan u galay sidoo kalena ay u galeen maxaa baraha bulshada u soo bandhigayaan maadaama sidoo kale rasmirees iyo Farxaan Yare ahaayeen lamaaneys qabeen haddaba dhaqanka Soomaalida marka leega ayaa ahaa in labada walad isqaba ama sidoo kale nin iyo naag ka noqdaan in ay sidoo kale si sharciyan waafaqsan adab iyo akhlaaq ku jirto si kastaba ha noqotee social media ayaa noqday markhaatiga ugu weyn ama sidoo kale meel maxkamada oo lagu garnaqsado halkaas oo qof walba soo maadaama labadii qof ay safgaran waaya sidoo kale ay soo bandhigaan midba wuxuu ka tirsanaya ka kale halkaas oo loogu garnaqayo sidoo kalena social media noqday halkii waxyaalo wacan oo ka faa'iideysan lahaayeen dadku in ay har iyo habeen sugaan musalsal ama laba qof oo lamaana isqabay kuwaas oo furay haddaba sawirada iyo sidoo kale muuqaalada ay labada qof ee lamaanaha isqabaan iska hayaan dadka shacabka ay u dhegtaagayaan ayaa noqday mid xiise gooniya abuura halkaas qof walba musalsalkan uu si dheeliyana ula socdo haddaba rasmirees iyo sidoo kale Farxaan Yare waxay bilihii ugu dambeeyay ama sidoo kale intaas fureenba socday musalsalkoodan halkaas oo inta qof ee ku soo xidhmad ay gaarayaan bilyan qof oo halkaas haddaba qof walba ama guri wal oo Soomaaliyeed uu galay arrinkan social media galgalay isla waqti xaadiradan ugu dambeeyana noqday mid ka sii baxaya faraha haddii arrinkan qoys ama sidoo kale labada qoys ka soo kala jeedaan Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmirees ay arrinkan waxba ka qaban in arrinkan uu noqonayo mid aad u sii xun
Si kastaba ha noqotee, Farxaan Yare iyo sidoo kale Rasmi Reis waxay kasoo kala jeedaan laba qoys oo sidoo kalena oo sharaf leh. Haddaba waxaan sidoo kale dhammaan dadweynaha culimada ugu waaweyn ka codsanaynaa in muuqaalkan hadduu soo gaadho ay la hadlaan sidoo kale reeraha ay kasoo kala jeedaan, maadaama halkaas ay ku ceebeynayo Farxaan Yare sharafta hablaha Soomaaliyeed iyo sidoo kalena uu dhaawacani soo gaadhayo gabadh kasta Soomaaliyeed, maadaama arrinkani noqday mid aan laga aamusin karin. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkan aanu kaga hadlaynay arrinkan, maadaama fanaaniintii macal ay u soo jawaabayaan midba dhinacu taageeray, maadaama sidoo kale fanaanka weyn ee Suldaan Seraar uu ku taageeray Rasmi Reis dhinaca qabiilnimo, halkaas oo sidoo kale Soomaalidu aanay qabiilnimada ka marnayn. Si kastaba ha noqotee, Rasmi Reis ayaa isla waqti xaadiradan ugu dambeyn lahaa way saxsantay, maadaama ay ka hadashay arrin xaqiiqiyana kaasoo dhammaan youtuberska ku kaliftay in ay falcelin ka bixiyaan iyo sidoo kalena u garnaqaan. Si kastaba ha noqotee, Rasmi Reis iyo Farxaan Yare way kala tegeen, cidna isku soo celin mayso, laakiinse muuqaalada iyo sidoo kale codadkii uu hayay Farxaan Yare ayuu soo bandhigay, halkaas ummad Soomaaliyeed dad badani ka cadhoodeen, Farxaan Yarena lagu dhaliilay, maadaama gabadhan tahay gabadh Soomaaliyeed oo arrimaheeda ama sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, social media ayaa noqday markhaatiga ugu weyn ama sidoo kale meel maxkamada oo lagu garnaqsado, halkaasoo qof walba maadaama labadii qof ay safgaran waaya sidoo kale ay soo bandhigaan midba wuxuu ka tirsanayaa ka kale, halkaas oo loogu garnaqayo. Sidoo kalena social media noqday halkii waxyaalo wacan oo ka faa'iidaysan lahaayeen dadku in ay har iyo habeen sugaan musalsal ama laba qof oo lamaana isqabay kuwaas oo furay. Haddaba sawirada iyo sidoo kale muuqaalada ay labada qof ee lamaanaha isqabaan iska hayaan dadka shacabka ay u dhegtaagayaan ayaa noqday mid xiise gooniya abuura, halkaas qof walba musalsalkan uu si dheeliyana ula socdo. Haddaba Rasmi Reis iyo sidoo kale Farxaan Yare waxay bilihii ugu dambeeyay ama sidoo kale intaas fureenba socday musalsalkoodan, halkaas oo inta qof ee ku soo xidhmay ay gaadhayaan bilyano qof oo halkaas. Haddaba qof walba ama guri wal oo Soomaaliyeed uu galay arrinkan social media gelgelay, isla waqti xaadiradan ugu dambeeyana noqday mid kasii baxaya faraha haddii arrinkan qoys ama sidoo kale labada qoys ay kasoo kala jeedaan Farxaan Yare iyo sidoo kale Rasmi Reis ay arrinkan waxba ka qaban, in arrinkan uu noqonayo mid aad u sii xun. Si kastaba ha noqotee, Farxaan Yare iyo sidoo kale Rasmi Reis waxay kasoo kala jeedaan laba qoys oo sidoo kalena oo sharaf leh. Haddaba waxaan sidoo kale dhammaan dadweynaha culimada ugu waaweyn ka codsanaynaa in muuqaalkan hadduu soo gaadho ay la hadlaan sidoo kale reeraha ay kasoo kala jeedaan, maadaama halkaas ay ku ceebeynayo Farxaan Yare sharafta hablaha Soomaaliyeed iyo sidoo kalena uu dhaawacani soo gaadhayo gabadh kasta Soomaaliyeed, maadaama arrinkani noqday mid aan laga aamusin karin. Si kastaba ha noqotee.